dhulkaygaan ku ahay nabad kuna helay dhammays nolol mana jiro wax iga dhiman oo aanu dhoofaa dhulkaygaan ku ahay nabad kuna helay dhammays nolol mana jiro wax iga dhiman oo aanu dhoofaa dhulkaygaan ku ahay nabad kuna helay dhammays nolol mana jiro wax iga dhiman oo aanu dhoofaa mana jiro wax iga dhiman oo aanu dhoofaa mana jiro wax iga dhiman. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي يا سو dhawaada meel kasta oo joogtaan halkaan taaganay waa deegaanka Dari Macaane oo ku taala magaalada Boorama waa goobaha ugu caansan ee loo dalxiis ka yimaado haddii magaalada Boorama la yimaado deegaankan oo ku caan ah biyo iyo dhagaxaan gaar ah oo sida u jeedaan inkastoo xilligan ku soo beegnay xilli aanu roob da ayaanu hayn haddana biyo shub badan baa ka jira oo xilli roobeed iyo xilli abaareedba deegaankan waa deegaan ku caan ah biyo shubka inta badan oo xilligan aan ku soo beegnay inkastoo aanu hayn xilli roobaad oo roobku ay deegaanadeena bariyahan ay kala goolaayeen haddana sidaad arkaysaan ilaa hadda biyo way fadhiyaan oo biyahan waa biyihii roobkii ugu dambeeyey ka da'ayay waddanka gaar ahaan gobolkan awdal ee Boorama. saaxiibayaal kulli waxa iska gaadhay waqtiga aanu sii tagaynay haddana waanu tagi kari weynay dhulkayga quruxdiisa maasha Allah waxaan baan soo jeclaysan inaan sii daawano markaa asxaabta waxaan leeyahay dhulkaygaan ku ahay nabad kuna helay dhammays nolol mana jiro wax iga dhiman oo aanu dhoofaa. saaxiibayaal saad u jeedaan waxaan joognaa deegaanka Dari Macaane oo ku yaala gobolka awdal magaalada Boorama deegaankan ayaa inta badan ku caan ah biyo shubka xagga gadaasheeda iga dambaysa saad u jeedaan waa meelaha biyo dhacu inta badan ka sameeyo inkastoo xilligan haddaan kusoo beeganay uu yahay xilli roobabka iyo cimiladu aanay u badnayn xilli roobaad roobabka ay yaraadeen guud ahaan Somaliland oon kusoo beeganay xilli aan wanaagsanayn way ka fiicnaan lahayd xilliyada roobku da'ayaan ugu inta badan kusoo beegno haddana sad gadaasheeda arkaysaan weli waxaa sii fadhiya biyihii roobabka ee gugii hore. nabadan la dhahaya nafta dhiirigeliso gayigan ku dhaata waa dhaxal awowgay nabadan la dhahaya nafta dhiirigeliso gayigan ku dhaata waa dhaxal awowgay ninka odayga halkaa biyaha waqtiga ku qaadanaya waa Cabdinajiib oo kamid ah akhyaarta safarka ugu helinayay halkan qodhiisa iyo soo fadhiya Cabdinajiib soo dhaw maxaad leedahay maanta Dari Macaane joognaa bal ka waran maanta waxaanu joognaa Dari Macaane goobtan yacni VIP da quruxda badan biyo ku jiraan halkan bay waqti iskaga qaadanay maadaama Boorama soo gaadhnay aynu isninahay haddana bal Dari Macaane waa goob caan oo Boorama ku dhow yanaha ka reebina marka maasha Allah de waxa weeyaan durdurkaagaas ka fadhiya mararka qaar waliba halkan waxay caan ku tahay inay biyo iska soconay yeelato oo halkan gidaarka weyna arkaysaan xaggiisa dambe biyo fariistaan tan biyahaas halka gidaarka ka soo dhaadhaca marka qurux weey maasha Allah nimcada dhulkeena taala inaan dareensanay bay kamid tahay Yunus bas naan ka fadhiya Yunus ka hor aduguna maanta Dari Macaane joognaa bal ka waran meeshan quruxda saaxiib maxaad qiimeyn والله ماشن دري معانا قناص مرك ماشن قروح يقحلها قناص إنده مركون إنده قناص كسوتش دنيا وأنا مال جو دقن أو قناص لكن كاك بيها حاجة يلا إن كستوي إرهان تصكوي قران لكن مرك بيه ليه إلى حاجة بيه قران وأنا مال قناص وناكسن حنا تذكري برمو welcome كالن ليه حاجة meeshan aad imika u jeedaan inta badan dhalinyarada xataa reer Boorama waa ay ku dabaashaan oo waqti bay ku qaataan maadaama hadda imika biyihii yaraadeen oo biyaha ku jira aad u kooban yihiin suuragal uma aha in hadda ay ku dabaalato ka goobtan oo goobadeeda ajiiba biyo badan ayaa soo mara oo inta badan u kaca dhulka xagga kale doox xaggaas u soconaya ilaa xaggaas u kacan Dari Macaane mugto meel iska jawi degan aan waa meel kan muuqiyo qurux leh waxaan leeyahay dhamaantiin Dari Macaane hal imaado ayimka meeshan oo kale xaggan oo kale dhulkaas oo kale waa macaan jawi degan weeyaan waxaan leeyahay dhamaantiin hal imaado Dari Macaane